بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal meel walba aad joogtaan waxaan leeyahay dalab wanaagsan. waxaan rabaa in idin la wadaago qaybtii labaad ee barnaamijkeeni aan kaga soo hadalnay waxyaabaha qofka muslimka arsaaqada u soo jiidi kara. yaan qaybtii hore kaga hadalnay intii la socotay. waxaan rabaa in aan kelmaddan aan kaga hadlo waxyaabaha qofka muslimka ah arsaaqadiisa ka celin kara, ciriiri ka gelin kara ayaan ka hadli doonaa. waxyaabahaas waxa ugu weyn oo qodob koowaad ah waxa loo yaqaano zinada oo ah jariimo foolxun oo kamid ah min akbar al-kabaa'ir. qofka markii uu noqdo qof zaani ah ee hadda jeer zinada muxuu ahaa daba taagan wuxuu noqonayaa qof arsaaqadii muxuu ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka celiyo, faqri iyo cayrnimana weligii kama baxayo. ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inooga diga arrinta ayada ah oo aayadda qur-aanka ilaahay wuxuu ku leeyahay walaa taqrabu zina innahu kaana faaxishatan wa saa'a sabiila. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala zinadan ilaahay wuxuu leeyahay ha u dhowaanina. macnaha fiiri zina yacni ha gelin lama dhihin, waxaa la ha u dhowaanina. xitaa waxaa la diidin loo muxuu ahaa waxyaabaha muqadamaadka ah ee ka horeeya zinada xataa qofka in wax walba keeni kara in laga fogaa. saa darteed wuxuu leeyahay walaa taqrabu zina innahu kaana faaxishatan wa saa'a sabiila. ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay tahay wax xun oo fool xun wada la maratan waxay tahay, ilaahayna wuxuu leeyahay ka fogaada. sidoo kale nabiga xadiis wuxuu ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam iyaakum wazina fa inna fiihi arbacatu khisaal. nabiga wuxuu leeyahay zinada iska ilaaliya maxaa la ku sugan afar xaaladood ayaa ku sugan. xaaladda koowaad nabiga wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam yudhibu albahaa can alwajh. yacni qofka waxay muxuu ahaa wejigiisa waxay aftiinka wejiga ayay ka tagay qofka zaani markuu noqdo qof wuxuu noqonayaa wejigiisa weji qurmoon ee mugdi ah ee iftiinkii iyo quruxdii ayaa ka lumaysa. sidoo kale nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wayaqdacu risqa arsaaqada ilaahay uu ka jaraya. waxaa ku dhacay in ilaahay risqigii ilaahay uu isu waasicinin oo muxuu ahaa uu noqdo qof ku nool nolol ciriiri ah. sidoo kale wayusqidu araxmaana allah subxaanahu wa tacaala allah raxmaankaana caradiisa ku dhacayso ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka caroonaya ruuxa isaga. waalkhuluudu fi nnaari naartuna uu ku waaraya uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam. marka afartaas xaaladood ayaa laga dhaxlaa zinada. waa foolxumo, waa jariimo xun oo la rabo qofka muslimka ah inuu ka fogaado intuu noloshiisa uu nool yahay, inuu marna uu iska ilaaliyo inuu u dhowaa zino. waxaa ka mid ee keeni kara qofka muslimka in arsaaqada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka celiyo. waxaa ka mid a in muxuu ahaa qaraabada oo la jaro. qaraabada in la jaro oo aan la xiriirin waxay keeni kartaa in qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala arsaaqadii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku ciriiriyo oo arsaaqadii ilaahay saa muxuu ay kaga xanibanto. xadiisna waan soo marnayo oo nabiga calayhi salaam uu lahaa qofkii jecel in loo waasiciyo arsaaqadiisa qaraabada ha xiriiriyo. qodobka xiga ee keeni kara qofka in arsaaqadiisa ilaahay uu ka celiyo waxaa ka mid a in beega la nuqsaamiyo oo muxuu ahaa marka wax la beegayo ee muxuu ahaa miisaanka la nuqsaamiyo waxay keeni kartaa in ilaahay arsaaqada muxuu ahaa uu kugu ciriiriyo oo muxuu ahaa arsaaqadiisa lagaaga celiyo. waxaa ka mid sidoo kale alxukmu bigayri ma anzala allahu tacaala, in muxuu ahaa dadka ay isku xukumaan waxa ilaahay soo dejiye waxaan ahayn in la isku xukumo. maxaa ilaahay koomkan wuxuu usoo dejiyey kitaab qur'aana oo munazal ilaahay usoo dejiyey. kitaabka waxaan ahayn haddaan isku xukunno oo aan ka tagno muxuu ahaa hadigii muxuu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo kitaabkii qur-aanka loo soo dhiibay iyo sunnadiisa haddaan ka tagno oo waxaan ahayn aan isku xukunnaa waxay keeni kartaa cayr in la noqdo oo faqri uu dhaco oo wax la-aan ay dhacdo oo arsaaqadii ciriiri gasho. sida muxuu ahaa dhibaatada maanta dalkeeni macluush aynu ku nool nahay. marka mar waliba oo laga fogaado ilaahay kitaabkiisa qur-aanka kariimka ah dhibaatada iyo mushkilada unbaa imanayso. waxyaabaha arsaaqada naga celina waxaa ka mid a inaan qawaaniin iyo waxyaaba muxuu ah bini aadan uu sameeyey inaan rabnaan isku xukunno. taa waxay keeni kartaa caqabad iyo mashaakil. waxaa ka mid a in dadka zakada ay diidaan, mancu zakada oo muxuu ah la diido oo muxuu ah dadkii maalka ilaahay uu siiyey inay zakada iska bixin waayaan oo muxuu ah ay diidaan waxay keeni kartaa
in ilaahay arsaaqada subxaana wa tacaala uu inoogu ciriiriyo oo irsaaqada ilaahay inoo waasicinin. waxaa ka mid a qodobka xiga ribada iyo muxuu ahaa qofka inuu waxyaabaha dulsaarka ah iyo kasabka xaaraanta wuxuu keeni karaa in ilaahay subxaana wa tacaala arsaaqada inay naga cishoonto, ilaahay uu naga celiyo, ilaahay uu noo waasicinin oo mar walba qofku uu ku noolaado ciriiri inuu ku noolaado. waxaa ka mid alyamiin alkaadib, qofka muxuu ah dhaarta beenta, dadka ganacsanaya oo wax kala gadanaya, dadka qaar waxay wax ku gataan dhaartu, maanta dhan uu dhaaranaya wuxuu leeyahay sidaasaan ka soo dhow wallahi intaas ugu fudhay, dadkaas dhaarta wax ku gaday sida dadka ku qiyaanayaan iyana muxuu ah arsaaqad iyo faa'iido kama helayaan, bal arsaaqadii baa ciriiri ka galayso oo muxuu ah wax oo wanaaga iyo aad ka helaysid midnaba ma laha. waxaa ka mid sidoo kale wax loo yaqaan al-ixtikaar, dadka in la cuno qabateeyo oo muxuu ahaa dadka qaar ay muxuu ahaa baqaarada raashinka laga buuxiyo isla kolkii muxuu ahaa la yiraahdo markii badxiranka la galo xilliyada qaar oo gaabka uu soo galo yaa dib loo soo saaraya si dadka loogu ciriiriyo yani looga gado lacag fara badan. taa ayadana waxay keeni kartaa in arsaaqaday meesha aad ka raadinaysid ilaahay inuu kaa xanibo oo wax aadna ka faa'iidanaya iman kartaa. taana waxaa la rabaa dadka ganacsatada ah in dadka muslimiinta ay u dhimriyaan oo muxuu ahaa xilliyada muxuu ahaa kala badxiranka lagu jiro in dadka ay wax xanibaada geliyaan, xilliyada kale ay u soo saaraan oo si ay faa'iido fara badan ay kaga helaan, waxba kama faa'iidayaan ummadooda ha u naxariisteen. waxaa ka mid sidoo kale wax walba oo qiyaano keeni kara, qiyaanada in wax la isku qiyaano oo muxuu ahaa dadka la qiyaanan waxay keeni kartaa in ilaahay subxaana wa tacaala arsaaqadii ilaahay uu inaga xanibo ayaa iman karta walaalayaal. haddaba muxuu ahaa qodobadan aan soo sheegnay muxuu ahaa waxay kaa celin karaan risqiga iyo arsaaqada ay kaa celin karaan oo muxuu ahaa waxaad noqon kartaa qof ilaahay arsaaqada uu ku ciriiriyo. waxaa naftayda tiin u daarmaya marka inaynu ka fogaano oo muxuu ahaa aynu noqon dad ilaahay subxaana wa tacaala ka baqa oo qodobadan aan soo sheegnaba aynu ka fogaano si ilaahay subxaana wa tacaala arsaaqada inoogu waasiciyo. waxaan dhammaantiin idin rajeynayaa insha allahu tacaala in ilaahay arsaaqada noo waasiciyo. waxaan idinka rajeynayaa inaad dadka kale aad u muxuu ahaa muuqaalkan aad la sheergareysaan oo muxuu asxaabtiina kale aad gaarsiisaan. jazaakum allahu khayr, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.